ودولة هجاميسة لبدي مدحوينه هورنا والله كلمة مدحوين الشريف يمدحوين حسن قوني بانو لا كلمة waxaanu la kulmay Sheekh Ali baa ila joogay Sheekh Bashiir baa ila joogay waxaanu la kulmayna waxay ahayd in ay dhaahdo dalka u tura dalku mucaarado iyo hadal iyo ma xamili karo marka nasiixa nasaaran ina waxa hagaajinaa nasaaran inaan ummadda u noqono qudwo lagu daydo ayaa nasaaran laba arkood culimadu inay kala saarto way sida culimadii ugu horeysay sheegeen midda koowaad waxa weeyaan markaad adigu madrasadaada iyo masaajidkaaga iyo xirtaada iyo inta ku raacsan wax u akhrinayso waxa diin ahaan ugu qanacsan tahay u akhri laakiin markay timaado maslaxada guud iyo danta guud ee ummadda ka dhaxaysa ninna kama lihid ummadda nagala dhaxaysa annagana qayb baan ka nahay ummadda qarannimadeeda wada jirkeeda nabadgeliyadeeda is ilaalinteeda sulxigeeda ummadda soo gaadho oo masaalixda guud ay timaado waa inaad ka timaado madrasadaadii khaaska ahayd qanacsanaantaadii khaaska ahayd taa gooniha ku ahaato tanna ummadda la wadaag taana markay gooni ku ahaato waxaad sheegayso diin ugu qanacsan diinahan ugu qanacsan tahay sheeg aad baad u mahadsantihiin jaakum waxaan ku gabagabeynayaa aniga ka shakhsi ahaan aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta waana runtii waxa weeye waa idinka aqbalay soo dhaweyntii iyo xafladan iyo ka horba raallina waan ka ahay haba yaraatee nin u dudsanna ma ihi muxaadara lagu diiday uma dudsan mana sheeganayo magaalada muqdisho ayaa lagugu takooray ma qabo mana qabo inaad raalligeli ii siisaan sababtu waxa weeye wax dembiyood iga gasheen oo ma jiro markaan jawaabayana waxaa idhi muqdisho waa magaalada haba yaraatee cuqdad aan la noqonayana ma jirto insha allahu tacaala hadday duruuftu ii saamaxdana waan soo noqon oo waan idinla joogaa insha allahu tacaala sheekha muxuu ahaaye walow walaalaha qaarkood hadalkooda wadaadada kala qabta uu ka muuqday wadaadada kala qabta ma aha masaladu wadaadada kala qabta ma aha masaladu waxa weeye wadaad baa khaldamay ninka khaldamayna waa in la yiraahdo waad khaldantay saasay baashu ku hagaagtaa anagu intaan doonanay khalad maana abuurin mushkilo maana abuurin ujeedadeeduna ma aha inaan muxaadaro dhigo markaan meesha iimaanay laakiin bulshada qaar ka mid ah culimada ay iga codsadeen dhowr bal inala joog khudbada jumcadana noo jeedi muxuu ahaay muxaadaraadna magaalada ka jeedi waan baaqday anigoo magaalada Nairobi hawlo badan kule waan saa u baaqday hadday mushkilo abuurantayna go'aan waxaan qaatay intii hataa iska dhaaf dhiig ku daatee ruux Soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku gali lahaa sababtay ayadana la kansalo ayadoo waliba dawladdu ku madax adag tahay ana diiday oo ku yiri maya ma dhacayso hatta madaxweynaha waxaan ku qanciyay qiso waxaan u keenay Uthman ibn Affan khalifatu Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa loogu yimid duulaan niman kacdoona duulaan ugu yimid xafiiskiisii bay isku wareejiyeen inay dilaan bay rabeen saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam la joogay baa damcay inay difaacaan oo dagaalamaan oo khaliifka muslimiinta difaacaan Uthman wuxuu ku yiri ruux muslima intii sababteeda dhiig ugu daadan lahaa u baneeya farax ka qaada dagaalamina way ka baxeen saxaabadii nimankii way u soo galeen Uthman asagoo quraan akhrinayay ku dileen qisadaasan xataa u sheegay dawladdan ku idhi maadaama khaliifkii muslimiintu dhiiggiisii in la dilo u ogolaaday calashaan muslimiintu ha badbaadeen muxaadaro laga maarmi karo inay muslimiinta dib u soo gaadho sax maaha sidaasaan marka ku baajinay sidaas daraadeed wadaadka iyo wixii la fikrada iyagana waxba uma qabo Soomaaliya oo dhanna waa saamax dad fara badan oo la lugooyay oo aflagaada iyo wax badan sameeyayna ayaguna waa cafi idinkuna waad mahadsantiin haddii uu munaasabadii timaado oo la isu yimaadana masaa'il wixii culimada dhex yaala in laga wada hadlay ku fiicanta wixii la isla afgaran waayana nin walba uu tiisa si nabadgelyo ku wato wixii la isla afkartana si walaalnimo loogu wada socdo isaguna waa cafi intii gaf gashayna waa cafi dhamaanteena Allah ina wada cafiyo aadna waa u mahadsantiin jazakumullahu khair